beri baa waxaa jiri jiray 3 gabdhood oo isla dhashay oo la kala yiraahdo Maryan, Maariyo iyo Mudan. Gabdhahan waxay guri kula noolaan jireen hooyadood, laakiin markii ay weynaadeen ayaa gurigii wuxuu ku noqday mid cariiri ah marka iyaga loo fiiriyo. gabdhahaygii sharafta lahaayo, waxaa la gaaray waqtigii aad fikrad cusub la imaan lahaydeen. waxaan sii doonaa mid kasta oo idin kamid ah boorso lacag ah. waxaadna u isticmaali kartaan sidaad doontaan, balse haddaad tihiin gabdho caqli leh sida hooyadiin, lacagtaas waxaad u isticmaali doontaan inaad ku dhisataan guryo cusub. Gabdhihii way ka aqbaleen hooyadood, hooyadina way macasalaamaysay gabdhaheedii. iyagoo mid kasta ahi boorsadeedii ay jeebka ku wadato, ayay go'aansadeen inay raadiyaan meel qurux badan oo waasac ah oo ay ku noolaadaan. muddo kooban kadib, gabdhihii waxay arkeen meel waasac ah oo keynta dhexdeeda ku taala. Maariyo waxay ahayd mid aad u faraxsan, waxayna heshay meel ay ka dhisato guri iyada u qaas ah. Fiiriya, dhammaan geedahan. mid ayay u dul istaagtay geedihii, iyadoo ka fikiraysa sida uu u ekaan doono guriga ay ka dhisato laamahan jilicsan. waxaana u jawaabtay walaasheedii ugu yarayd gabdhaha ee Mudan. laakiin Maariyo, guriga laga sameeyay laamaha ma noqon doono mid xoogan, marka waa inaad ku samayso gurigaada geedo xoog leh si aysan dabayluhu u qaadin. haa, laakiin laamaha keynta ayaan ka soo qaadanayaa, wax lacag ahna ma iiga baxayso, lacagtayduna way ii baaqanaysaa. waxaana ku soo iibsanayaa fadhi carbeed iyo alaabaha kale ee aan u baahanahay, markaasna waan faraxsanaan doonaa. Maariyo waxay bilowday inay aruuriso ulihii iyo laamihii ku yaalay keynta si ay gurigeeda ugu dhisato, ayadoo labadeedii walaalood aysan ku qanacsaneen fikraddan, haddana way caawinayeen maxaa yeelay taasi waa mid ay isku leeyihiin dadka walaalaha ah. waqti gaaban gudihiis, Maariyo waxa u dhismay gurigeedii u qaaska ahaa, xitaa Mudan ayaana u qirtay inuu yahay guri qurux badan. hadda Maryan ayaa iyaduna bilowday inay aruuriso cawska si ay iyaduna u dhisato gurigeeda qaaska ah. Maariyo markii ay aragtay labadii gabdhood ee ka yaraa oo ku mashquulsan aruurinta cawska, way ku qosashay. cawsku xoog ma lahan, mana ku habboona in guri lagu dhiso. gurigaygu wuxuu ka samaysan yahay geedo adag, gurigayga ayaana ka xoog badan midka aad dhisaysaan. Maryan ayaana ugu jawaabtay, laakiin gurigayga wuxuu noqon doonaa mid qurux badan oo diiran, maxaa yeelay cawsku wuxuu buuxinayaa meelaha dulduleela, laakiin gurigaada geedo ayuu ka samaysan yahay, waxaana soo gelaya qabowga iyo roobka. kor ayayna fiirisay, waxayna aragtay in qorraxdii ay sii dhacayso. haye, waqti ma hayno ee iga caawiya dhismaha gurigayga. maya, anigu waxaan aadayaa suuqa si aan u soo iibsado faras aad u qurux badan iyo dhar qurxan ee dhisa gurigaada. waxayna qaadatay Maariyo boorsadeedii lacagta ahayd ee ay hooyadeed soo siisay, waxayna aaday dhanka magaalada. Mudanna way daashay, mugdigii habeenkuna wuu soo batay, mana ahan mid guri dhisan karta. xilligan kadib, maantoo dhan waxay la shaqaynaysay Maryan oo gurigeeda la dhisaysay. ugu dambaynna gurigii Maryan waa dhammaystirmay. oo dhan waxaan dhisaynay gurigaada, hadda aad ayaan u daalanahay, xilligan kadibna guri ma dhisan karo, sidaa darteed adiga ayaan kula jiifanayaa. maya, gurigayga booskaaga ma bannaana, waxaan dhistay guri yar si uusan qofna iila seexan. Mudan way rumaysan weysay sida ay ugu jawaabtay walaasheed. maantoo dhan waxay waqtigeeda ku bixisay inay Maariyo iyo Maryan guryahooda la dhisto. haddana markii ay rabtay meel ay seexato, walaasheed ayaaba u diiday. waxaan sugi doonaa Maariyo, gurigeeda wuu weyn yahay, ayada ayaana la jiifan doonaa. saacado kadib, markii ay soo laabatay Maariyo, ma aysan ahayn kaligeed, oo waxaa la socday 2 gabdhood oo wadata dhar qaali ah. kuwaan waa saaxiibaday, magaalada ayaan isku soo barannay, sooma qurxana dharka aan u soo gaday. hadda waxaa la gaaray waqtigii hurdada, subaxdii ayaa noo ballan ah. Maariyo waxay xiratay albaabkeedii, Mudan oo kaligeed bannaanka taagan ayayna uga tagtay. Mudan geesaha ayay fiirisay, mana aysan u jeedin wax ay guri ku dhisan karto. sidaa darteed waxay ku qasbanaatay inay iska jiifato dhulka, ayadoo dhulku uu yahay mid aad u adag oo aad u qabow. haddana Mudan hurdo dheer ayay hurday, maxaa yeelay maanta oo dhan ayay si adag u shaqaynaysay si ay u caawiso walaalaheed.
balse waxay ku fikiraysay in berri ay noqon doonto maalin wacan oo walaalaheed ay ka caawin doonaan inay soo iibsato bulukeeti si ay u dhisato gurigeeda. subaxdii ayay mudan ka soo kacday hurdadii iyadoo ay qorraxdii soo baxday, waxayna u yeertay Maryan iyo Maariyo. Maryan gurigeeda ayay garaacday, mana laga furin. waxayna aaday gurigii Maariyo, way garaacday, Maariyo ayaana u soo baxday. waxayna Maariyo u sheegtay in Maryan ay aaday suuqa si ay u soo iibsato alaab cusub oo qurxan una soo barato saaxiibo cusub. mudanna waxay u sheegtay inay u baahan tahay caawimaad si ay u soo iibsato bulukeeti. laakiin Maariyo way u diiday inay caawiso, waxayna farta ku fiiqday mid ka mid ah saaxiibadeeda cusub. waxayna tiri, saaxiibadaydan qaaliga ah waxay u baahan tahay xoogaa lacag ah si ay u soo iibsato sac. sidaa darteed ayada ayaan raacayaa, waxaana u soo iibinayaa saca ugu qurxan suuqa. Maariyo gadaalkeeda ayay mudan ka aragtay saaxiibadeedii cusbaa oo miisaamaya boorsadii Maariyo oo ay lacagtu ka buuxday. laakiin waxaan kugula talinayaa inaad reebato xoogaa lacag ah si aad cunto ugu soo iibsato xilliga jiilaalka. waxaana ku qososhay Maariyo oo tiri, saaxiibaday ayaan la qaybsanayaa lacagta marka ay iibsato caanaha saca aan u gadi doono. suurtagal ma tahay inaad ii dhiibto faraskaada si safarkaygu uu u noqdo mid fudud? maya, keligay ayuu ugu filan yahay. mudan keligeed ayay suuqa aaday, si adag ayayna u shaqaynaysay maalintaas oo dhan, waxayna ku dhibaatootay socodkeeda tirada badan ee ay suuqa ugu laalaabanayso. waxaana u naxariistay mid ka mid ah beeralayda oo u dhiibay faras iyo gaarigiisii. inkastoo mudan ay u baahneed inay muddo badan ku laalaabato suuqa maadaama ay qaadanaysay bulukeeti badan. markii ay dhammaysay daldalidii bulukeetiga ayay walaalaheed ka codsatay inay ka caawiyaan dhismaha guriga, laakiin Maryan waxayba ku mashquulsaneed saaxiibo cusub oo ay heshay. sidaa darteed Maariyo ayay u tagtay. suurtagal ma ahan inaan ku caawiyo, waxaan ku labisanahay dharkaygii cusbaa. maxaad ugu labisan la'dahay dharkii ay hooyaday ku soo siisay? waxaas waxa uu ahaa mooda laga tegey, waana gubay. mudan murugo ayay dareentay markii ay keligeed ka shaqaynaysay dhismaha gurigeeda. hooyadood waxay gabdhaha soo siisay dhar, waxayna ku amartay inay ilaashadaan, laakiin Maryan iyo Maariyo way iska tuureen dharkaas mar hore. maskiintii mudan ahayd maalmo badan ayay dhisaysaa guriga. maalin kastana walaalaheed ayay ka dalbataa inay caawiyaan, laakiin way u diidaan. waxaa lagaa rabaa inaad samaysato guri ka samaysan geedo sida aniga. xilligan waad dhammayn lahayd. haddii aad caws isticmaali lahayd sida aniga, xilligan lacag ayaad haysan lahayd aad ku soo iibsato sariir iyo alaab kale. laakiin mudan dhig jalaq uma siin warkooda. waxay ahayd mid maalin kasta ka shaqaysa guriga. derbiga gurigeeduna tartiib tartiib ayuu u dheeraanayay, cimiladuna way sii qaboobayeen, ilaa maalin maalmaha ka mid ah uu dhammaaday gurigeedii. mudan waxay fiirisay gurigeedii, waxayna dareentay farxad aan caadi ahayn. ma aysan haysan alaab iyo maacuun, laakiin waxay fashay oo abuuratay beer khudaar ah, kadibna waxay suuqa ku iibsataa khudaartii ka soo baxday. sidaas ayayna ku heshay lacag badan oo ay ku iibsatay alaabtii iyo maacuuntii ay u baahneed. haddana ma jiro wax ay ka walwalsan tahay, wuxuuna gurigeedu leeyahay saqaf kore oo aan qabowga iyo roobka soo daynayn. maalmo kadib mudan waxay maqashay cod, waxayna soo istaagtay daaqadeedii, waxayna indhaheedu qabteen sacii ay Maariyo u soo iibisay saaxiibadeedii cusbayd oo xariggii goostay, iyo gurigii Maariyo oo dabayshu dudumisay. markii ay Maariyo soo baraarugtayna waxay aragtay labadeedii saaxiib oo qaatay sacii kuna labisan dharkii qaaliga ahaa oo ay iyadu u soo iibisay, kadibna iska baxay. kadibna mudan ayaa u ogolaatay inay iskala noolaato, maxaa yeelay taasi waa wax ay isku leeyihiin dadka walaalaha ahi had iyo jeer. maalmo badan kadib waxaa bilowday roobab aad u xooggan. habeenada ka mid ah ayaana mudan waxay ku soo kacday garaacitaanka albaabka. waxay ahayd Maryan oo bannaanka taagan, aadna u qoyan, gurigeedina ay biyuhu qaadeen. mudan waxay ka furtay albaabka, waxayna u ogolaatay inay soo gasho, maxaa yeelay taasi waa waxa ay isku leeyihiin dadka walaalaha ahi. markii xilli roobaadkii laga baxay ayaa beertii mudan
waxaa ka soo baxay khudaar fara badan oo qaali ka ahayd suuqa. Maryan iyo Maariyana way diideen inay ka caawiyaan guritaanka iyo iibinta khudaarta, maxaa yeelay waxay caado ka dhigteen nolosha raaxada ah iyo labiska aan macnaha badan ku fadhin. Shaqadii oo dhanna waxay ku cidleeyeen walaashood. Maalmo kadib, maalin maalmaha ka mid ah, Maryan iyo Maariyo oo suuqa ka soo laabtay ayaa waxay arkeen dharkoodii oo bannaanka rasaysan. maxaa ku dhacay aqligaadii mudanay? ka waran haddii dharkana laga xadi lahaa. jooji doqonnimada oo noo oggolow inaan guriga galno. waxaa la rabay inaad si fiican uga faa'iidaysataan lacagta ay hooyo idin soo siisay. waxaana laydinka rabay inaad dhisataan guri xoog leh, laakiin lacagtii oo dhan waxaad ku qarash garayseen saaxiibo aan caqli lahayn iyo alaab aan macno samaynayn. waxaan idiin oggolaaday inaad ila noolaataan muddo dheer, maxaa yeelay taasi waa waxay isku leeyihiin dadka walaalaha ahi. laakiin hadda cimiladu way wanaagsanaatay, waxaana la gaaray wakhtigii aad dhisan lahaydeen guryo. waxaan iibinayaa dhammaan waxa ka soo baxay beertayda, waxaana idin siinayaa lacagtii ay hooyo idin siisay oo kale. markaasna waxaad haysataan laba doorasho: mid inaad lacagtaasi ku dhisataan guri bulukeeti ah, ama inaad dhisataan guri aan awood lahayn oo aan xagaaga sii jiri karin. waxaana idin siinayaa waano: shaqada adag iyo sabirka mirahooda waa la gurtaa had iyo jeer. lacagtiinna u isticmaala si xigmadaysan, ogaadana idinma caawin doono mar kale. dabcan waxaa anfacday waanadii mudan, mana aysan rabin in mar kale ay guri la'aan ku dhacdo. lacagtoodina waxay ku dhisteen guryo xooggan oo qurux badan. qisadeennina halkaas ayay ku dhammaatay maanta. fadlan ha iloobina inaad channelka subscribe saartaan adinkoo gujinaya meesha yar ee cas muuqaalka hoostiisa. mahadsanidin.